waayahay mudka ma ogeyn bay farxaan diraaca waa ku salaamay waa ka qaaday basadiirow horta ninaan jeclahaa tahay majaajiladiisa iyo habka komidiga u sameeyo iyo warsoo gudbintiisa iyo aftahanimiisa aan jeclahayaa tahay waxaan kugu hormarayaa tan ku saabsan qabiilka horta qabiilka daahir calasow ma keenin ee qabiilka waxaa keenay editor 4.5 wax lagu qaybsado marka farxaanow inta aan 4.5 u gelin qabiilka quraanka kariimka lagu sheegay oo waxa la yiraahdaa qabiil shucuubana tihiin marka aniga sanad kontonaadaan gelayaa qabyaalad baan ka hadlaa qabiil baan ka hadlaa waxaan ku weydiinayaa markaad aayadaha quraanka iyo axaadiista nabiga ba furto maxay uga wada hadlayaan reer ansaareed reer qureysheed reer ruum maxaa looga hadlayaa oo hebel reer binu fulaan ah reer binu fulaan ah reer hebel buu nabiga geela u badiyay wix qaniimada soo qaatay reer hebel buu siiyay hebel baa ku yiri nabiga allah maxaa u siisay reer hebel qabiilkaaga maxaa u weexatay nabiga wuxuu dhihi jiray wiil qureysheed baan ahay cumar sidaan yiri maxaa 12 quraanka iyo axaadiista ay uga buuxdaa oo markaad riyaa saarixiin xitaa akhrisay ahkaamu saraajku muxuu u soo gelayaa mar kasta meel kasta la furo qabiil muxuu u soo gelayaa maxay markaa ka dhigtay Sacuudi Arabiya askariga jooga oo halka ugu qoran tahay maxamed cabdullaahi qabiil fulaan halka maxay ugu qoran tahay maxay ugu qoran tahay imaaraadka waxa weeye maxaa loogu qaybsanayaa golihii wasiirada iyo xildhibaanadii iyo xilka qabiil maxaa loogu qaybsanayaa taa waxa weeye dadka bulshada qabiil bay isku fahmaan dadku waa qabiilo dadkuna qabiilku aad bay u jecel yihiin laakiin siyaad bara wuxuu dhihi jiray qabiilka hala duugo isagaana geeljiraha reer diini ama reer kooshin korneelka dhigi jiray isagaana u dhiibi jiray xeelka marka qabiilku ceeb ma ahee qabyaalada daran baa ceeb ah oo ay soo bilaabayaan kubii xilka loo igmaday ama laga dhigay mas-uuliyaddii la saaray ummadda Soomaaliyeed ay soo mataqaanaa marka aniga qabiilka waan daynayaa waxaan dayn doonaa marka 4.5 la daayo oo la yiraahdo laba nimo walaalaha noqon kara madaxweynihii dalka iyo ra'iisul wasaarihi markaasaan daynayaa taa waa qabiilka waa maasan tahay cabdiqaadir boosow reekalaab hoos waa il salaamay waxa weeye taariikhdeedu ka sheekaynaya laakiin waxaan ku hormarayaa reekalaab hoosow su'aal allaale iyo su'aashii aad jeceshiin ay weydiin kartaan ma jirto xishood ma jirto waa oday hal dhaafo qof kasta wixii qalbigiisa ku jiro oo run ah ayuu weydiin karaa anigana u jawaabayaa waxaan u adkaysanayaa su'aashiisa waxa la rabaa inuu adkaysto jawaabteeda haddii inta aan ka tago aniga waxaan ku barbaaray degmada Raagaceelle ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaan sidoo kale ku barbaaray xaafadda Looyaa Iskoolgoday ee Sanca ku taala waxaan kadib noqday ciyaal wariigley waxaan kadib noqday meesha la yiraahdo ciyaal hurwaa suuqa xoolaha waa meesha Cabdiqaadir Boos sinema raas aan geey jiray soo nin yar oo cunug yirisa ah oo dhaga dheer waxaan ka soo shaqeeyay wargeysyadii Beeldeeq waxaan ka shaqeeyay STN waxaan ka soo shaqeeyay mataqaanaa Shabeelle waxaan marka dambe noqday agaasimaha idaacadda Simba waxaan ka qayb galay shirkii Djibouti iyo ka dhacayay mataqaanaa Embagati oo mataqaanaa waa xilliga Embagati markaan jooga aan furtay website waaga cusub la yiraahdo waxaan ahay nin kritikada jecel waxaan ahay nin fanka iyo suugaanta jecel waxaan aan waxbarashadayda ay u badneed aan ku qaatay oo bartay caafimaadka hadda se waxaan ku shaqeeyaa saxaafadda oo balwad gooni ii ah wixii ay ehelkayga jeclaayeen inaan dhakhtar noqday ahayd aniga waxaan jeclahay inaan weriye noqdo weliba kow dambaariyaasha ah ama aan noqdo qolooyinka muqaabaraadka ee sirta Soomaaliya sidaa weeye sheekadu marka daahir cabdulla calasow rooble gaadaala la yiraahdaa aniga waxa mataqaanaa aabahay waxa mataqaanaa waa nin hawiye ah oo habar gidira aabahay waxa dhalay gabar cili cumara oo waxbuudana hooyadayna waa naag habar gidira waxa dhashay ilaahay kuma samadiide gabar kale oo habar gidira oo ceyr ilaaheeya warkaygu intaasuu ku dhan yahay awogay wuxuu ku dhashay meel leedo qoriile oo gobolka Doola ka tirsan aabahayna wuxuu ka yimid laagta Gilisoor hooyadayna waxay ka timid Bandiriley asal ahaan intaasi haddaan sheegmo wax kale ayuu kii harsanaa jiro waliba waxa u hadashay daahir si sharaf leh
oo taariikhdaada dabcan intii laga rabay siyaasiyiinta weli waxaa kaga khibrad badan taha waa soo koobtay wixii dadka qalbiyadooda ku jirana muhiimadda waa ka hadashay waayahay wixii su-aala caawa waxba la iskuma reeban doono weliba waxaa yaab ah daahirow in siyaasiyiinta abuuriyaasha qaar halkan markaan keenno ay dhahaan su-aal hebelna lama weydiin karo weliba si qaas inoo weydiiyaan lakin adiga dadka hortooda leedahay waxaa rabti weydii maama najma oo from nairobi joogta barnaamijka ayadan dabcan way nala wadi doontaa maama najma kusoo dhawow oo compe saaxiibkay aada soo dhawow oo compe dabcan barnaamijkana waa ila daadihin doontaa haye haddii aad daahir su-aal u qabtaan adiga najmada marka hore bal adin ku bilaabo oo compe ma maqle saaxiib si fiican waa aad baa ku maqla boos soo dhawow haddaa daahir cabdulla cali su-aal u qabta caawa kalaabaa soo joogaa isagoo life ahayn wax badanna dabcan daahir waa wax badanna waa wanaajiyey wax badanna dhiiqolugta waa la galay haye kaale heegaarkeyna daahir waa ka dhahay caawa waxaad doonta waa weydiin kartaa afka furta horta daahir cabdulle culusow abduqaadir boos oo caawa nin waxaa keentay magaciisa laga garanaya nin culus waxaa ka baqayaa kala hoos caawa inuu duwo shirkadaba inaad meesha ka dunto nin culus baa keentay waa u malaynaya inaad muud kuusu sheegtay in la galo marka daahir haddii aadan su-aal ka jawaabayna muudka iska gal markii su-aal lagu weydiin xashishaqaaga si aan loo maqal daahir horta waxaan kugu soo dhaweynaa kala hoos odayga meeshaan qofku markuu ku cusub yahay reer baadiyo waagi hore waxaa loo qalaa qofka markuu yimaado geed iyo waxbaa loo qalaa martisoor halkan martisoorku waa fulow odayga fulow hala siiyo caawa ha lagu gaarsiiyo 10,000 odayga daahir kaleefaasa u baahan daahir koola kusoo galaa telefonka inaad iska xirtaa jeclaan laheen muudna inaad geshid haddii su-aal lagu weydiinay dhinadu dasturi baa iska saaraya dhinadu dasturi baa iska saaraya haddii kale maantaasoo dhan way wacayaan isku jira odag waxaan is lahaa hadduu mar baxo amuu ambadaa laakiin waa fahamsanbaas waa nooga dheerayaa qofka ugu horeeya dabcan barnaamijka oo combe iyo cismad iyo maadaama inala daadiinayaan oon garab weyn u baahanaa ilan culeys baa wadnaa caawa daahir cali sow culeyska weyn ma jire marka faraxaan ku bilaabaa kadibna lii faraxay su-aal haddaad qabto daahir cali sow su-aal waxba ha ka xishoonin su-aal akhlaaq leh oo qalbigaada ku jirto oo aad isleedahay alla ilahay daahir cali sow waa ku wacnin ama waa ku ammaani kartaa xitaa midaan akhlaaq lahayn taageere iyo dad taageere dhalinyarsan labada waa leeyahay faraxay soo dhawow xitaa su-aal aan akhlaaq lahayn waa weydiin kartaa farax daahir cali sow waa ku salaamay nin culus waa kuu taaganahay su-aashaan ku weydiinaa waxa waaye horta kalaab hawska caawa inaan kusoo biirtay in adeero waa ku faraxsanahay laakiin waxaan kaa rabnaa su-aal maahane oo codsiye waxaan kaa rabnaa kalaab hawska markaa inaa adiguna saas ugu badatid oo kalaab haws noo furtid oo arrimaha muqdisho iyo arrimaha gaarka markii laga hadla aan ka wada hadalno annaga reer youtube ma nihin facebook live kama soo geli karno meeshaanaa noo shidan wax badan aan kaa sugayno welcome wixii kalena gadaal baan kasoo geli doonaa ma raba inaan weerarka ugu horeeyo waa mahadsantihiin waayahay soco ku socda waayahay dad badanaa daahir cali sow su-aal u qaba aadhar haye dadka kala soo qabanaynaa adinka ila soo qabto oo combe dadka asxaabta hoose weli joogaan abduqaadir musoo dhaweyn karaa daahir maama najma soo dhawow ixtiraam badanaa ku haynaa allah ku sharfo aad iyo aad u mahadsan tihiin intiina meesha joogto waa idin salaamay si gaara waxaan u salaamaya abtigay daahir cabdulle culusow abti soo dhawow abti waa beer horta ani su-aalaha karbaashkaa kama qaybgeli karo waayo hooyadee bakoorad ilaa ag fadhiso waaye oo daahir uu madaxa u saaran yahay dhalinyaro badan oo soomaaliya halkan ku jirta daahir waa nin xigmado badan leh la dhagaysto inkastoo beryahan abtigay buuq iskaga furnaa waxaan rajaynayaa si sharaf leh walaaltinimo leh wanaagsan dhalinyarada inay su-aalaha weydiiyaan daahir waa ninaa wax badan ka faa'iidi kartaan qasab maaha qofka inaad ku fikir tahay ama aad jeceshahay ama aad saaxiib la tahay laakiin waxaa qasaba in markasta la isxushmeeyo oo la isu soo dhaweeyo waxaa naga dhexeey waa soomaalinimada wiilkayga cismad hooy macaan soo dhawow caawo maslax waa idiin furan yahay dhalinyaro cabdiqaadir boos mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaaga mahadnaqaya intaanu qof inaad isku keentay oo dhalinyaro ahoo soomaaliyeed aadna u keentay nin xargo ay uga xirxirnaayeen waxaan rajaynayaa program fiican inuu noo noqdo walaashay faadimo maanta soo dhawow abwaankeena waxaa nala jooga farxaan diraac kulligii soo dhawaada war waa salaamay ustaadka farxaan diraac waa salaamay aad baa u mahadsantaha maama najmo haye farxaan wax su-aal aad qabto ma jirtaa kadibna amarada ku xigsan doona kadibna faadimo maalta ku xigsan doonto gabadheena saxafiyiinta farxaan haye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan u salaamayaa dadweynaha qaybta kore iyo qaybta hoos joogtaba oday daahir hadda ma joogaa horta waa joogaa farxaana waa joogaa waa ku maqlayaa waa ku maqla daahir waa ku maqlayaa
horta daahir waxaan weydiinayaa niyow laba su'aalood baan u qabaa وايه su'aalood oo aan u qabo ugu horreyn horta waa soo dhaweynayaa Clubhouse kusoo dhawow baan leeyahay saaxiibkay وايه in badan barnaamijyadeeda la socdaa siduu sheegay waanan u ogahay aniga laftirkeyguna waa ku xirnay beejiisa marka su'aalahan u qabo waxa ka mid ah daahirow sidaa sheegtay sanad kontonaad baad ku jirtaa nin odayana waa tahay maaragtaa haddana waxa kaa ag muuqdaado hiddihii iyo dhaqankii iyo calankii soomaaliyeed iyo timihii weynaa maaragta oo soomaali aad ku matalaysay sawirkoodii baa kaa muuqda inaan oday caqli u saaxiiba tahayna waa kugu tirinayaa waa kugu tuhmayaa maxay tahay sababta mar walbe aad daahirow qabiil uga hadasho adigoo siyaasadda aan kaala soconnay weliba khaasatan anigu waxaan ku xirmay beijkaaga 2017 meel aan beijkaaga ahayn ma soo geli jirin arrimaha siyaasadda iyo dagaalada dhacaya iyo qaraxyada iyo nin sirdoon waxa oran jiray warninkan iyo mijin baa la shaqeeyay ninkan muxuu yahay markii dambe dadku waxa ma ka dhaadhicin jiray xitaa warninkan CIA da la shaqeyso waaba nin waxa weeye Mareykan naga daayay oran jiray xogtu hay cid haysa ma jirtay marka adoo heerkan noo joogay oo nin qaran ahaa maxay tahay sababta waxa kugu soo celiyay inaad nin qabiil noqoto oo arrimaha qabiilka aad ku fargato maalin walba ka hadasho haddana inta markii hoos looga sii dhago de maaragta ugu blaaya inaan kuugu magac daraa mararka qaar qabataniyo waliba xogaa gabayana ku soo daro waayahay basadiro wiil yar iyo gabar iyo waxyaabo kale iyadoo wax ka ceejinayaan arkay marka oday Soomaaliyeed baad ii ahayd hawshii sare oo Soomaalinimada gormaad ka soo degtay masal laga yaabaa inaad kor ugu noqotid maxay tahay sababta aad uga soo degtay inaad aad baan ku salaamay eegana raalaw waayahay basadiro waa ma santahay daahir hadaa joogtahay basadiro waa ku salaam farxaan diraacow oday aan jeclahay majaajiladiisa iyo qosolkiisa tahay marka si hufan aan kugu jawaabayaa waayahay su'aashaas meel noo taale farxaan dilaa waayahay mudka ma ogeyn bay farxaan diraacow waa ku salaamay waa ka qaaday basadiro horta ninaan jeclaha tahay majaajiladiisa iyo habka komidiga u sameeyo iyo warsoo gudbintiisa iyo aftahanimiisa aan jeclahay aad tahay waxaan kugu hormarayaa tan ku saabsan qabiilka horta qabiilka daahir calasow ma keenin qabiilka waxaa keenay cid 4.5 wax lagu qaybsado marka farxaanow inta aan 4.5 u gelin qabiilka quraanka kariimka lagu sheegay waxa la yiri qabiil ama shucuubana tihiin marka aniga sanad kontonaad aan gelayaa qabyaalad baan ka hadlaa qabiil baan ka hadlaa waxaan ku weydiinayaa markaad aayadaha quraanka iyo axaadiista nabiga ma furto maxay uga wada hadlayaan reer ansaareed reer qureysheed reer ruum maxaa looga hadlayaa oo hebel oo reer binu fulaan ah reer binu fulaan ah reer hebel buu nabiga geela u badiyay wix qaniimada la soo qaatay reer hebel buu siiyay hebel baay ku yiri nabiga Allah maxaa u siisay reer hebel qabiilkaaga maxaa u weexatay nabiga wuxuu dhihi jiray wiil qureysheed baan ahay umara sidaan yiri maxaa 12 quraanka iyo axaadiista ay uga buuxdaa oo markaad riyaa saarixiin xitaa akhrisay ahkaamu saraajku muxuu u soo gelayaa mar kasta meel kasta la furo qabiil muxuu u soo gelayaa maxay markaa ka dhigtay Sacuudi Arabiya askariga jooga oo halka ugu qoran tahay Maxamed Abdullaahi qabiil fulaan halka maxay ugu qoran tahay maxay ugu qoran tahay imaaraadka waxa weeye maxaa loogu qaybsanayaa golihii wasiirada iyo xildhibaanadii iyo xilka qabiil maxaa loogu qaybsanayaa taa waxa weeye dadka bulshada qabiil bay isku fahmaan dadku waa qabiilo dadkuna qabiilku aad bay u jecel yihiin laakiin siyaad bara wuxuu dhihi jiray qabiilka hala duugo isagaana geeljiraha reer diini ama reer kooshin korneelka dhigi jiray isagaana u dhiibi jiray xeelka marka qabiilku ceeb ma ahee qabyaalada daran baa ceeb ah oo ay soo bilaabayaan kubii xilka loo igmaday ama laga dhigay mas'uuliyadii la saaray ummadda Soomaaliyeed ay soo mataqaana marka aniga qabiilka waan deynayaa waxaan deyn doonaa marka 4.5 la daayo oo la yiraahdo laba nimo walaalaha noqon kara madaxweynihii dalka iyo ra'iisul wasaarihi markaasaan deynayaa taa waa qabiilka tan ku saabsan mataqaana dhalinyarada aad u gubdiriyay bixisay waxa weeye ilmaha